kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba waxa la soo gaadhay hadii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkeena ciyaaraha oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan shaashada TV-ga caalamiga ee Bulsha TV xaruntiisa magaalada Hargeysa. daawadayaal toddobaadkan barnaamijkeena waxa marti noogu ah ciyaaryahan Maxamuud Cabdi Xasan oo ku magac dheer Koofinda. محمد كسر بلشة في برنامج عيارة. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وعندو هاي أديات بدل ما سنت هاي ولا لا؟ الحمد لله وعندو هاي. أنا ما سنت هذه بلشة في به. محمد واحد بالتاريخ قبلنا قصة تاريخ نولد كاجي. إيه تاريخ هذا عيارات كاجي نولد. runtii waxaan ku dhashay aan ku soo barbaaray magaalada Hargeysa ama gobolka Maroodijeex 1980kii 13kii bishii July heerarkii kala duwanaa nolosha intii aan jiray xaggii waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ilaa heer master waxaan joogay magaalada Hargeysa ama Somaliland oo aan waxbarashada ku soo qaatay halkaas oo ay dheereed mihnada kale ee bahda sportska ciyaarahuna aan iyana ka waday anigu kubadda ka soo bilaabay barnaamijka xaafadii marka dambeysa aan ahaa qof kubaddii kolba heer ka soo ciyaarayay ilaa markii dambe aan ka mid noqday timamka waaweyn ee Somaliland ka mid ah adeeg gobolada tahay hadii ay tahay timamka kala duwan heerarkooda waa tahay Maxamuud waxa jiray kale ciyaaryahan weyn oo caan ah tahay Somaliland heerarkaagii koobaad labaad ilaa aad ka soo gaadhaysay inaad Somaliland xulkeeda qaranka matasho baliyada halkan noogu faahfaahay runtii sanadadii u dambeeyay waxaan ahayn ciyaartooydii waxaan ka mid ahaa haddaan qofkii u fiicnahayn waxaan ka mid ahaa dadkii xubnihii la tilmaamayay ee ka dhex muuqday ciyaartooyda ciyaarayay iyo runtii aanan oran karin qofkii ugu fiicnaa baan ahaa laakiin waxaan ka mid ahaa dadkii la tilmaami karayay ka mid ah ciyaaraha taasina waxay runtii keentay in 2016kii markii ugu horeysay Somaliland ay ka qayb gasho tartanka wadamada aan la aqoonsanayn dawladaha aan la aqoonsanayn tartankaas oo runtii ahaa tartan hore u jiri jiray oo FIFA ay qaban jirtay qaybteeda CONIFA qayb la yiraahdo tartankaas oo Somaliland markii ugu horeysay Somaliland ka qayb gasho waxaa lagu qabtay bariga Yurub lagu qabtay wadanka Abkhazia runtii xadlayn Ruushka kaasoo aniga iyo saddex ciyaartooy kale aan ka tagnay wadanka gudihiisa waxaan u helinay xildhibaan caga yare iyo marka Xasawara Bacde oo isaguna ahaa wasaaradda ciyaaraha kamid ah qaybta Olimbikada taliyaha dawladda hoose maayarka dhinaca ciyaaraha ahaa runtii halkii maayarkana matalay oo aan ku biirnay dhalinyaro kale oo reer Somaliland ah oo iyaguna ka yimid qurbaha sida Holland Ingiriiska ama UK kuwaas oo kula midownay wadanka Abkhazia halkaas oo dadtana ciyaartooyda aan ku matalnay magaca Somaliland wadamada la aqoonsan oo markii ugu horeysay ahayd 2016kii bishii June waa tahay weyn u dandegi doonaa Abkhazia waxaad kala kulanteen sax marka waxaad ka tirsan tahay heerka koobaad kooxda dawladda hoose xulkana gobolada Somaliland waxaad matashaa gobolka Maroodijeex wal marxaladihiisa aad ku soo gaadhay in ciyaaryahan matala magaalada Hargeysa caasimadda iyo gobolka Maroodijeex iyo heerarka kala duwan ee ciyaaraha aad soo martay taariikh nololeedkaaga runtii waa su'aal fiican weeye imika waxaan ka tirsanay kooxda heerka koobaad ee dawladda hoose caasimadda Hargeysa waxaan ka mid ahaa ciyaartooydii markii la aasaasayay lagu sameeyay 2004 lagu aasaasay waqtigaas oo maayar Jiciir oo runtii fikradda iska lahaayeen maayarka iyo ciyaaryahanadii hore waa aragaha sida dhiliye iyo ay ka mid ahaayeen ragga caynkaas oo runtii la yiri si ciyaarihii loo kobciyo dawladda hoose ha qaataan kooxo loo sameeyo heerka koowaad dawladda hoose saasaan ku ciyaartooydii lagu aasaasay waqtiga xilligii biig ahayd kaga soo biirtay aan ka mid ahaa runtiina ciyaarahana waxaan ka soo galay anigoo yar ban ciyaaraha bilaabay
oo kubadii xaafadaha kadib koox yaray sidii heerkii saddexaad heerkii labaad ilaa markii dambe heerkii koowaad aan ka soo qayb galay dowladda hoose waxaan ahayd runtii marxalad kooxo badan aan soo maray heerkii hoose oo waqti dheer soo qaadatay marka dowladda hoose waxaan ka soo galay anigoo ka tirsan markaa koox la oran jiray heerka labaad waxa laga soo qaatay la oran jiray Liban Construction markii dambena Unique Construction ku dambeysay oo markii dambe aan dhowr xubnood laga soo qaaday waan kamid ahaa saasaan ku yimid tiimka dowladda hoose waa tahay intii aad dowladda hoose ka tirsanayd ku soo gelitaankii dowladda hoose caqabado waa laga yaabaa tii xaafado inay ka duwanaydo ama lacag la ciyaaro ama in yaroo isku deegaan ay markaa ay xaafadaha ciyaari jireen waxaa timid dowladdii hoose oo leh sharciye iyo maamul see caqabadii ugu horreeyay kaaga horreeyay maxay ahayd runtii tiimka dowladda hoose markii la aasaasay waxa lagu guuleystay in la helo ciyaartooydii magaca caasimadda ku ciyaar lahaa ama magaca tiimka dowladda hoose ku ciyaar lahaa oo ciyaartooy quality fiican leh oo si fiican loo soo xulay taasoo markii dambe runtii training baa la sameeyey garoonkii baa loo diyaariyey macallinkii baa loo diyaariyey marka caqabada jirtay ugu horeysay marka waxay ahayd sidii dhalinyarta laga soo kaxeeyey tiimamka kale oo dhalinyartaasina ay ka timid magaalada darafadeedii oo aanay dhinaca qura ka imanin oo degmooyinka Hargeysa ka koobantii laga soo wada kaxeeyey sidii la iskugu hayn lahaa waxyaabihii baahiyahoodii haday tahay qalabkoodii haday tahay tasiilaadkoodii ama transportationkii haday tahay si la iskugu soo loogu heli lahaa markii la sameeyay waxa ciyaartooyda lagu keenayay waxaad u ciyaaraysan dowladdii hoose waxa la diin sameyn doonaa mushahar waxa heli doontaan garoon aad ku leedihiin waxa heli doontaan waxyaabo marka halkan joogteen idaan heleenin waxa kaloo meesha ku jirtana waxay ahayd maadaama qofku marka hore koox xaafada u ciyaarayay ama meel in yar u ciyaarayay deemanka wuxuu ka weynaado waxa yimid isdhexgal baa yimid team dhalinyaro kala duwan oo aragti kala duwan ciyaartooy kala duwan la isku keenay marka caqabadii ugu horeysay waxay noqotay in muddo 9 bilood ay nagu qaadatay in teamkii loo sameeyo mushaharkii iyadoo duruufaha markaa dowladda hoose dhaqaalaha iyo diyaar garowga iyo hawshan aqbalaadeeda maadaama dowladda hoose hore aanay u lahayn team u ciyaara oo ubkani u bilowha in sharciyadii la sameeyay ciyaartooyda xeerarkii qabanayay mushaharkii la siinayay baahiyahoodii kale diriisadoodii iyo safaradoodii gunooyinkoodii waxyaabahaas waxay noqotay muddo qaatay 9 bilood taasoo markaas sababtay ciyaartooydii qaar ka badani ay dib u noqdaan idan meeshii aan ka yimid halkan isuma dhawo waxa la sheegay waxba ka duwano tiimkii ku noqdeen laakiin aan waxaan ka mid ah ciyaartooydii badnayd ee meesha ku samartay runtii dhowr xubnood mooyaan inta badankooda way ku samreen markii dibana waxa lagu guuleystay in loo sameeyo mushaharkii oo ciyaartooydii la diiwaan geliyo sawirdoodii heshiisyadooda la geeyo wasaaradda ciyaaraha taasoo deetana marka caqabadahaas horta markii ugu weyneed waxa caqabadaas soo talabaad jirtina garoon baahayna garoon u gaaro dowladda hoose aan waqtiga jirin taasina caqabad bahdo waxaan kolba garoomada waxaan ku tababar qaadan jirnay xarada Birjeex oo ciidanka qaranka halka garoon weyn ka furnaanay waqtigaas marka caqabadaha garoon la'aanta iyo mushaar la'aanta iyo waqtiga isku xirkaas kulli ayaa jiray waa tahay waxaynu dowladda hoose hadda inta kaga nimaadno waxaad ka mid noqotay ciyaaryahanadii gobolka Murudijeex laba tartan bad kula guuleysatay iyaga marxaladihii gobolka Murudijeex iyo waayihiisa ciyaareed runtii marka tahay ciyaaryahan gobolka Murudijeex u dhashay aad tartanka ciyaaraha markii ugu horeysay loo xilay waxa 2007 bay ahayd oo runtii si wanaag ma suurta gelin markii ciyaartooydii lagu dhawaaqay ee ku xeerka koowaad laga soo ururiyay gobolka Murudijeex matalay wasiirkii markaa joogay iyo xiriirkii markaa joogay waxay yiraahdeen ciyaartooyda caasimadda heerka koowaad way ka leefal sareeyaan ama isku grade maaha gobolada markaa iyaga waanu ka joojino waxa ka qayb gali doonaan xulkii qaranka la sameeynaya koobka bariga bartamaha Afrika ay ka qayb galiyaan dadna si wanaag sanadkaas oo loo xilay 2007 kamaanan qayb qaadan kooxda waa laga joojiyay gobolka Murudijeex markaa waxa uu mataliyay ciyaartooy heerka labaad laga soo xulay waxaanay soo gaareen quarter final bay soo gaareen semi final bay ku hadheen oo waxa reebay gobolka Awdal Baar ku reebay marka marba waxaan jeclaan maalin garanka gobolka Murudijeex xidho oo koob kula guuleysto oo aan noqdo gobolka Murudijeex deegaan aan ka soo jeedo inaan kula guuleysto koobka waxaanay suurta gashay nasiib 2011 oo lagu qabtay gobolka Togdheer taasoo aan ku guuleysanay koobkii
isla markaana aan noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey Somaliland ama geyiga Soomaalida ee gaari dee hadiid ahaan loo siiyo ama abaalmarin ahaan loo siiyo gool dhalintana waan ku guuleystay koobkiina waan ku guuleysanay waa tahay waxaan usoo noqon doonaa tartankaas iyo guushiisii ma xasuusataa markii ugu horreysay lagu soo garaacay lagu yidhahdo maxamed cabdi xasan koofindhe waxaad matali doontaa gobolka Maroodijeex halkeed ku sugnayd xaaladaada bal dareenka nala wadaag marka runtii halkanna fariin baan uga dirayaa mahadnaqa iyo duca macalin maxamed diridhaba oo runtii macalinka kooxda dowladda hoosena ahaa gobolka Maroodijeexna imanka ah muddada labada kooban ku guuleysanay iyo kuwii ka dambeeyayba tababaro noo ahaa ilaa 2010 tababaro ahaa gobolka 2007 tababaraha gobolka ahaa runtii marka la joogo gobolka Maroodijeex waa caasimadii ciyaartooyo badan oo tayadeedu sareyso ayaa jooga marka way fududahay inaad boos si yar oo fudud aad uga hesha runtii waxaa jiray tartamo ka horreeyey oo la ciyaaray wasaaradda ciyaaruhu qabatay oo kuwa xeerka koobaad oo tiimka dowladda hoose aan ciyaarayay labadii tartan ee ka horreeyay 2010 koobkii dahabshiil kaab iyo koob kale ka dambeeyay oo Telesom kaab isaguna ahaa iyo koob kale koobkii rabadaanta doorista loo oran jiray saddex tartan oo isku xigay ayaan si wanaag alxamdulillah ku guuleystay ciyaaryahankii gool dhalinta marka waxa muuqatay wax tarkayga ciyaareed baa muuqday laakiin markii la soo sheegay aan ku arkay liiskii soo baxay macalinku liis buu soo saaray wuxuu u gudbiyay saxaafadda media laga sheegay anigoo suuqa jooga ayaa la soo sheegay inaan saaxiibna Siciil yiraahdo ango yaa soo lagu liiskii goolka Maroodijeex waa la soo saaray waad ku jirtaa maantaas aad bixintii farxadeyda صح aan riyadii aan lahayn aan gobolka Maroodijeex u ciyaaro aan guusha gobolka ka qayb qaato taasoo dareenkayga maanta waa Siciid Anga ku soo sheegay Siciid Anga waa nin bahda sportiga ka tirsan markuu Siciid ku soo sheegay waxa ku fuulay mas'uuliyad waxa district talo halkeed ka bilaabi doontaa markii uu Siciid ku soo sheegay go'aanadeed gaadhay maxad qaadatay runtii waxaan ka fikiray waqtiga tababarkii bilaabmay inuu yeeriyo iyo diyaar garowga laga sugiyo marka xil lagu doortay tiimka ama gobol baa lagu daray ama koox baa lagu daray ama xul baa lagu daray runtii waa sharaf laakiin waxa la socota mas'uuliyad iyo isla xisaabtan waayo kuwa naga fiican oo nasiibka aanu saacidin baa jira oo la doonayo inaad wixii lagu doortay aad muujiso macallinkii inuu shaqo wanaagsan qabto ka doonayo marka waxaan sameynay oo shakhsiyan aan sameeyay diyaar garow gooniya oo haday tahay xaqii waqtigii timetable-kii hurdada haday tahay waqtigii tababarka waxaan sameeyay diyaar garow intii hore ka baxsan si aan mas'uuliyadda saaran aan uga soo baxno marka diyaar garow intii hore ka duwan ayaan runtii galnay waa tahay maxamuudow diyaar garowgii baad gasheen tababarkii baad gasheen maxamuud badanka waxa lagu bartay waa gool dhaliye tayadiisu sareyso oo ah gool dhaliyaasha ugu horeeya Somaliland booska horta weerarka maxaad ku dooratay inaad ka ciyaarto runtii waa mahibad gaar ah oo qof waliba talent iska leeyahay yaraanteedii baan dhinaca bidixda walibana weerarka 12ka anigoo dhowr boos kala ka ciyaara haddana weerarka oo dhinac walibana gaar ahaan dhinaca bidixda yaan yaraanteedii jeclaa oo yaraanteedina ku soo caano maalan soo ciyaari jiray markii aan weynaadayna runtii halkii baan aad uga sii ciyaaray macallimiintii soo tababarin garsay iyo tababarayaashiina markii arkeen booskan ka ciyaariyo inuu ku haboonay iyaguna way igu sii tababar siiyeen halkii baan deetana sababtaas aan runtii waxaan jeclaaday in aan noqdo qof tiimka u ciyaarayo gool u dhaliya ama goolasha dhaliya ka qayb qaata taasaan runtii jeclayna markasta weerarkan ka ciyaaro waa tahay maxamuud waxaanu tagi doonaa wadanka Abkhaasiya halkaas oo ahaa tartankii ugu horeeyay ee koox matasha magaca Jamhuuriyadda Somaliland ay ka qayb gasho waxaad nasiib u yeelatay inaad matasho qaranka adigoo waliba u xiran ciyaaryahanadii weerarka markaa hogaaminayay iyada yaa halka lagu soo sheegay xaaladaad halkaad ku sugnayd markaa runtii arintaas waxay ahayd arrin runtii fursad weyn oo qaali ah oo qaranka Somaliland u soo hoyatay bahda ciyaaraha Somaliland u soo hoyatay markii ugu horeysay ahayd ciyaaryahanada Somaliland ka socda ay xulka qaranka intii matalaan ay wadamo kala ciyaaraan hore way u dhacday in ciyaartooyo xubno gaar inta la qaado nimanka kale aan ka xusi karo Cabdiriyaad oo kale oo saaxiibkaya iyo Shactiraal oo saaxiibkaya Real Madrid la geeyay marka
inta la qaaday ay sawirra soo galeen markaa dalxiis ahaan oo kale loo geeyey waayaragnimo ahaan oo kale loo geeyey laakiin tani way ka duwaneedo waxayd markii ugu horreysay tiim somalilan xulkii qaranka somalilan matalaya ay ka qayb galaan wadamada aan la aqoonsanayn welibana meel ka baxsan somalilan lagu qabto oo runtii safar dheer ahaa oo yurubta bari oo libana foga fursaddaasina waxayd fursad runtii intaydii halkan ka tagtay iyo intii kale wadamada diaasbaraha ka timid ay ahaayeen kuwo magaca somalilanna kor u qaaday qadiyadda somalilan runtii meel fog gaadhsiiyey fursadda waxaan joogay hargeysaan joogay caasimadda somalilan waxaa ii soo sheegay xasan waraab cadde nin la idhaahdo oo markaa waxaa la soo xiriiray somalilan f a oo dhalinyaro reer somalilan oo u k ka samaysan ayaa waxay soo tiri waxaan u baahanahay dhalinyaro gudihii joogta oo ilaa 8 xubnood 10 xubnood meelahaas markaa wasaaradda marka hore soo bandhigeen wasaaraddu waxay tiri imanka xul somalilan oo diyaara ma jiro shaqadiina way isku fahmi waayeen qolada agaasimaha guud runtii way isku fahmi waayeen habka shaqadaasi u socotay deetana maxamed dhabeeye ay la soo xiriiray anigu xitaan u tagnay markaa way isku fahmi waayeen shaqadu qaabkay tahay markii dambe waxay noqotay in ciyaartooydii somalilan joogay awoodi kariyey inay ama baasaboorada somalilan ku tegi kariyey fiisa u heli kariyey ama dhaqaale ahaan awoodi kariyey inay iyagu ilaa etoobiya gaadhaan disaba gaadhaan in runtii la raadiyo kuwooda ugu tayada fiicnaa marka waxaa nasiib u helay cabdikariin guji iyo maxamed khadar iyo guuleed iyo anigoo ahaa qofka afraad runtii doorashaduna waxay ahayd un muhiimaddu ma ahayn maxamuud baa laaciba amba cabdikariin baa laaciba in marka somalilan laga baxay dibadda la tago la helo miidiyaha imanaya iyo dadka ajaanibka lala kulmayo in la tuso dad gudihii waddanka ka yimid oo laga wareysto oo dadkan diaasbaraha dad ka duwana gudihii jooga la helo oo qadiyadii somalilan laga wareysto waddanka gudihiisii laga wareysto ciyaarihii somalilan laga wareysto gudihii markaa sababtaasaan runtii anagu aan ku tagnay waa tahay waxaan markaa intaa raacanya uga mahadnaqayaa golaha deegaanka caasimadda hargeysa oo ugu horeeya maayarka caasimadda cabdiraxmaan maxamuud caydiid oo runtii si hagar la-aana ambabaxayagii iyo soo noqodkayagiiba uga qayb qaatay inaan tagno qayb weyna ku lahaa hawshaas ambabaxeedii marka maxamuudow ma la odhan karaa tartankaas wuxuu ka madax bannaanaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha somalilan waayo hadduu mar idin raacay xubin ka tirsan golaha deegaanku oo maayarkuna qayb ka ahaa midaan sharcigii ka gudbin wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha runtii xildhibaanku wuxuu ku baxay casuumaddii agaasimaha guud loo soo diray ama wasaaradda ciyaaraha loo soo diray ayuu ku baxay agaasimaha waan la xidhiidhnay waraaqii xataa waxaan weydiisanay fasaxa waxaan weydiisanay inuu raaco waxaa la weydiistay martiqaadka inuu ka qayb galo laakiin runtii agaasimuhu iyo wasaaraddu tartanka ayagu raalli kamay ahayn in lagu matalo somalilan raalli kumay ahayn sababta ka cudur daartay inay tagaan annaga tigitaankaygii xitaano bixitaankaygii culays bayna saareen inaanu dee dhalinyar ahaan wan baxno haddana nisbana way noo suurta gashay marka tartan wuxuu ahaa officiala oo dhacayey oo lagu qabanayay waddanka dibaddiisii wasaaradda ciyaaraha waa lala soo xiriiray oo loo soo bandhigay roolka markaa halkan yaalay wuxuu ahaa in dhalinyarada dibadda joogta ee magaca somalilan ku matalaysa la raaco oo dad ka socda somalilan mas-uuliyiin la raaco oo somalilan gudaheeda ka socda wasaaraddii ka socda marka dhinac eegto tartamadii wasaaradda ciyaaraha qorshaysnaa iyo ciyaarihii somalilan gudaheeda qorshaysnaa may ahayn sababta ay u dhacday in dhalinyaranta la ururiyo dibadda magaca somalilan u matashana waxa weeye dibdhac somalilan ka jira xagga ciyaaraha oo xul qaran oo somalilan matala oo tegi karayey ama loo diri karayey abkhaasiya muu jirin wasaaradda ciyaaruhuna may lahayn ama may diyaarinin xulkii qaranka somalilan hadduu xulkii qaranka somalilan diyaar noqon lahaa dee doodda waxay noqon lahayd xulkanaa tegaya iyagaana soo matalaya laakiin xul somalilan u diyaarsani muu jirin waan gartay maxamuud waxaa jira bilado gaarood ku guuleysatay sida tartanadii somalilan ahaa inkastoo badanka labada weeraryahaane isku dhadhowaa mar walba aad adigii cabdiriyaad ahaydeen intee tartan baad ku guuleysatay baabuurtoo kale
hadiyadda ugu weyn ee Somaliland la bixiya haddii caalamka ay tahay in la bixiyo FIFA best player oo inaga waa best player keenu waa baabuurkaas marka imsa jeer baad ku guuleysatay runtii iyana waxaan u mahadnaqayaa ilaahay kisoo shirkadda Dahabshiil Group oo runtii ku dhiiratay inay motivationka dhalinyarada iyo ciyaarahaba ay ka qayb qaadato oo runtii hadiyadda ahayd shirkaddii ugu horeysay gaara bixisa 2011 aan waxaan ciyaaryahanka ku guuleystay 2011 waxaan ku guuleystay markii aan joognay gobolka Togdheer sanadkii dambe 2013 shirkadda Dahabshiil Group haddana bixisay hadiyadda waxa isku gool noqday 3 ciyaartoy Amiin iyo Cabdiriyaad iyo Sikawi oo Togdheer iyo Daad Mineeri Hargeysa oo kala ciyaarayay markii dambena gaarigii waa loo qaybiyay saddexdii gaarigii hadiyaddii waa la wada siiyay wasaaradda ciyaaruhu saasi go'aamisa shuruucdii u taalay waxa saddexdooda gaarigu ka dhaxeeya laakiin anu shakhsiyan waxaan ku guuleystay 2011 marka hadiyad qaali ah runtii laakiin muhiimaddu waxay ahayd oo ka sii qaalisanayd dhalinyaradii balwada lahayd kuwii qaadka cunayay kuwii tahriibka ku jiray haddii kubadiba lagu heliyo baabuur lagu heliyo kubaddi baan ciyaaraynaa marka dhiirigelin bay runtii aad iyo aad shirkadda Dahabshiil ku maasantahay runtii marka dhiirigelin wanaagsan bay ahayd waxaan filayaa daanan taariikhda khaldanayn in markii ugu horeysay geeyga Soomaalida ciyaaryahan lagu siiyo baabuur lagu siiyo adduunka waxaan maqli jirnay hebel baa goolka ugu horeey gaadho ku helay ama furo ku helay dahab ama kabad dahab ku helay laakiin Somaliland waxay markii ugu horeysay ay sameysay baabuur in lagu helo shirkadda Dahabshiil baan runtii keentay أنا أقول ما خلنا قينه. وقتها واحد شري أبخاسي وكلنا تكون جولستي ترتن كأبخاسي كونيفاي قبض. قول ليه أما قولك وقروح بدنا صافلين. فهمتي ترتن كاس ما خلا أجو أول كان قفهان هلي وحقيقي بدنايد. هلك على كسومالان وجاري فهمتي. وعلى كسومالان بروح لقيت هاي على مدى كلام والضمدي كلام رحت هاي. waxaa ka qayb galayo yimid miiriyihii badan adduunka magasiino balaaran newspaper waaweyn baa yimid ilaa wariyaal ka socday US Mareykanka ayaa yimid runtii oo gaar noo la kulmay oo wareysanayay oo uga sheekeynay qad Somaliland waxaa xusuus lahayd waanan iloobi karin markii heestii calanka la saaray safii ku jirnay soo dartay xulka qaranku markay ciyaarayaan sax si fiican heestii calanka la saaray heestii calanka halkii ka qaadnay marka qaar kood dee nagu han jirto toolka goorma gaari doontaan صح oo riyo kamid ahayd marka gaarka tartanka dalada waxa Somaliland marka hore loo aqoonsaday wadankii ugu shacbiyada badnaa wadamadii yimid ka qayb galiyay Abkhaasiya joogay wadankii ugu shacbiyada badnaa dadkii Abkhaasiya wadankii ugu jeclaayeen ay xadeetay soo dhaweynta ama taageerada oo xulka Somaliland baa loo aqoonsaday waxa kaloo maxamed aan ku guuleystay anigu ciyaaryahankii ugu fiicnaa Somaliland marka wadamada dhan marka la sheegay ma laakiin Somaliland qofkii ugu fiicnaa ee la aqoonsaday waxa kale oo siiyay goolkii ugu fiicnaa oo idana bilad baa la siiyay tartanka ka dhaliyay marka labada biladood bay hayeen iyo taa guud ee Somaliland la siiyay waa tahay inta waxaan kaga gudbi doonaa biladaha gaarka iyo tartamada waxa jira waxaanu badan ka daawanaa qaaradda Yurub tartamada ka dhaca Maxamed Cabdi Xasan Koofinde kooxda ugu taageera Manchester United waa tahay waa Ingiriiska mise qaaradda Yurub oo dhan marka Premiership la joogo runtii Manchester United baan taageeraa Euro dhan marka la eego Manchester United baa number 1 laakiin Real Madrid Inter Milan marka soo sii socdo sanadkan oo kale Solomon kale way ka jiftaa sanadkan marka la eego mustawahan ka bilownay meel fiican baan marinaa runtii marka la eego waayo waxaan soo galnay 3 sano kooxdu ay kaalinta 7aad iyo kaalinta 8 iyo koob la'aan ahayd runtii macalinka nimanka la keenay Jose Mourinho dadaal buu sameeyay runtii inkastoo ciyaartii dhaweed ay ka hadhay tartanka horyaalada qaaradda Yurub ay ciyaar runtii dhaawac u keentay sumcadiisa iyo tiimkaba laakiin haddana marka la eego mustawa tiimku ku jiro waxa la rajeynayaa inuu in ka sii fiican gaarsiiyo aanu saan aaminsan waxaan dadka aaminsan inuu macalinkaasi tiimka ku habboon yahay waqti mustaqbalka dhow ma mustaqbalka dheer ma صح labada sano soo socda inuu tiimka sii joogan jecel waa tahay weeraryahankeed ku dacagta ama ciyaaryahankeed ku dayata runtii anigu weliga waxaan ku dayn jiray ciyaaryahano loo kala halkan aan aad uga salaamayo labada qof oo joogaan
dito oo tiimka booliska صح dito iyo Seattle ilaa labada ciyaartoy oo runtii ka deynjo labada weerar ahaan jiray xitaa markaan yaraa meelaha ku ciyaarayaan tagi jiray haddaynu dibadda eegno runtii ciyaaryahanada rankigiis baan anigu Manchester United u ciyaari jiray waa sax nambarkiisana ma iyo Paul Scholes Manchester taadi bad igu noqotay barnaamijka Somaliland ka wuxuu ka rabaa shax 12 ciyaaryahana Soomaali Afrikaan hadii doona even qaaradda Yurub ay ka wada kooban yihiin shax la iska wada dhaxarka cadaalad وكله سؤال كذا waayo man filin runtii su'aashaas kala digtiin doonto si fiican adoo goolhayo waxaan ka bilaabi lahaa guuleed Cabdi Cabdilaahi guuleed Fernando ayaan goolhayo koowaad ka dhigi lahaa lambar 5 waxaan ka dhigi lahaa Mubarak Tedi oo imika Jarmalka jooga oo marna macallinkayga ah marna aan isku ciyaartay ahayn waxaan ku dari lahaa Eric Bailly aniga ku sheego waa Afrikaankii waxaa kaloo ku dari lahaa runtii isagana waxaan ku dari lahaa Shambriro صح oo isaguna goolka Maroodijeexa afartii difaac ahaa hal ciyaaryahan baqaarada Yurub noqday halkii ala golodi maca goolhayi haafka kalena waxaan ka dhigi lahaa runtii isla ciyaaryahan kaloo dee Afrikaan ma kale mar haddii qaaradeeni tahay ilaa Yurub waad ku darsan kartaa waxaan ku dari lahayn haddii tuu noqoto kale waxaan ku dari lahayn Daniel Alves oo kale ku dar lahayn oo Latin America صح oo imkana Barcelona u ciyaari jiray khadka dhaxo kale runtii waxaan ka dhigi lahayn shaxdaad ku ciyaaraysa 4-3-3 ba mise 4-4-2 ma waxaan ku ciyaari lahaa dan 4-2-4 4-2-4 ayaan runtii ku ciyaari lahaa afartii difaac hadday joogaan dhex runtii waxaan ka dhigi lahaa daymanka ciyaartooydii Somaliland aniga qaar kaga darnay صح waxaynu dhexda kaga dar lahayn oo kale Scholes oo kale dhex baan ka dhigi lahaa Paul Scholes oo kale Paul Scholes baan ka dhigi lahaa inkastoo aan kooxdaada ogaado haddana waxa kale oo soo raacin lahaa runtii isagana sidaan oo kale waan soo raacin lahaa صح sanadii kale waan soo raacin lahaa صح geesaha rangigiis iyo Messi baan ka dhigi lahaa weerar kale waxaan ka dhigi lahaa Drogba waxaan ka dhigi lahaa Yanelka waa tahay waxa jira caqabado kubadda cagta ka hor yimaada haddii lagu yiraahdo maanta intaad kubadda soo ciyaarayso oo dhan maanta Australia kubadda cagta iskaga fadhiso maalintii bay runtii horta caqabada weyn ee kubadda ka hor imanaysa waxa weeye way koobantay marka la eego kuwa ugu kuwan saameynta fog leh horta koow waxa uu mida marka dhaawac noqoto صح ciyaari kar weydo tartankii ama kubadda baad ciyaari kar weydo caqabadaha runtii qof ahaan iyo tiim ahaanba ku saameynaysa caqabadaha labaad ee runtii hal caqabad un baa laga rabaa tii kugu weyneyd waa markaad final timaado laga qaado adigoo soo dadaashay walibana aad finalkii timid aad finalkii lose garayso inkastoo dad experience yahay صح waa caqabadaha runtii kubadda cagta leedahay waa tahay Maxamed Cabdi Xasan Koofinde waxa tahay weeraryahan difaaca kugu mashquulka badan la Australia la yaacasankaasi runtii xoogaa muddan soo ciyaarayay kooxo badan oo soo ciyaaray ma oran karo qofkaas maanta maalin boo mid baa waqtiga lahaa laakiin ciyaartooyda iminka jooga haddii la tilmaamo horena waanu sheegay Maxamed Xasan Gabyaayin in la dhaha Gabyaayi arrinkaas ahaa difaacyada ugu adag markaan iska hor nimaadno runtii inkastoo nasiib wanaag markii dambe uu tiimka dawladda hoose noqday waxaan ku guulaysanay tiimka keenna والله كلامك كده بيبا والله قيب لما كلها واتهاي كوفيندي كل هاي كودب كبرنا استرادا مانتا بنرتبه لو ديبي ريكورد waa final ba taaganta aad maradu Axmed dawladda hoose matalay gool wadaha suudan la final kaas uu ka qaban lahaa runtii guuleed buu noqon lahaa laakiin guuleed soo gobol baan ahayn marka laga tago guuleed wuxuu noqon lahaa Salman Buffon oo tiimka booliska ciyaari jiray oo imkana maqan tartan gabil ku ciyaarina rekoorada ay qaftay runtii صح markaas Salman Buffon baa la oran jiray ninkaas lakin ka baqan jiray marka gool ku jiro anaga hor imaado waa tahay Maxamed Cabdi Xasan hadii la yiraahdo maanta hal casuum inta deebad ugu jeclaan lahayd in lagu casuum garbiye digri hadal hilgeel lagu darno ka sifnaa waa tahay waxaan ku siisaqaynaa gabagabada barnaamijkeena ciyaaraha toddobaadyada soo socda waxaa la filayaa bahda isboortiga ay filayaan in tartan
KFA-ga ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo xidhiidhka kubadda cagta Somaliland ay shaaciyeen tartanka ka dowlad hoos ahaan sidaad ugu diyaargarowdeen maxaad ka filaysaa runtii diyaargarow fiican baanu tiimka ku jiraa oo ilaa imika noo socda waxaan rajeynayaa insha Allah inaanu meel sare ka gaadhno haddaan tartanka iyadoo targetku yahay inaanu tartanka ku guuleysano waxaan rajeynayaa meel fiican ka gaadhno ilaa heer aan ku guuleysano wasaaradda ciyaarahana waan ku hambalyeynaya tartanka ay shaaciyeen runtii diyaana intaasoo dhan kubadda cagta kusoo dhex jiray caqabadaha ku muuqda aad islaada maanta maxamuud ahaan dadka waad la wadaagi kartaa wasaaradda ciyaaraha iyo xidhiidhkuna waxa ka qabtaan runtii anigoo fursaddan uga faa'iideysanaya hadday tahay xukuumadda iyo hadday tahay wasaaradda ciyaaraha lafteedaba horta madaxweynaha Somaliland aan u ducaynaa waan hambalyeynaa ilaahay inuu xilka u fudaydiyo 3 bilood buu imika dhamaystay insha Allah waxaan rajeynayaa haddaan dhalinyarada nahayna dadka rajada ugu badan ka qabaan nahay maanta ma dhaliilayno waxaan filaynaa in wax badan ka qabto baahiyaha dhalinyarada maaha in la qabto sanadkiiba ciyaar tartan la qabto ama tartan la qorsheysan la qabto waxaan u baahannahay wasaaradda ciyaaraha iyo xukuumadduba inay sameyso 5 years balaanki inay sameyso ciyaaraha wasaasadii qaranka ee ciyaaraha la sameeyo tartamadii la qabto waa tahay daawadayaal intaa waxaynu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeena ciyaaraha dhanka kamarada waxaa noo joogay Faad Axmed Kaariye habeentii isku dubaridkii Xasan Cabdullaahi jaamac toddobaadka xigeenteena ku kulmi doona waxaan idinkaga tagnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh insha Allah صعب بدها